adduunka ma maqal shaahid iyo sheekana kumaanu arag nin inta guulaystay ku ka guulaystay nabad ka baryay anaga ko وكادي والله على عالكاغي عطوغاغا وان كهلا ميا مساكين مالنا وبا هذا اللي نقول مالنتي ويدي اد فرقدا هيسين قبطو اي دعدي waxaan nagu walaalayaal farxadda imika wajigina ka dheehanay yaana naga waayay imika noo dagaal ba galay ayaa durtaba dhashkirideysaan oo la dareemaya waxa tiin waxaan maqli jiray col hortay jabay maqli jiray yaa nagu dagaal bay nagu qaadi baa iska jabteenba oo wabaada haysaan wali lama arag ciidan guulaystay oo nabad baryaya taas waxay ku tusaysaa maalintii dhaweyd igamaad guulaysan ee ana kala guulaystay ana iska adkaaday ana isjabiyay sida brother inaad nabad barido waxay cadeyn u tahay inaad maalintii dhaweyd adkaanin balse annagu aan iska adkaanay oo guushi gacanta ka gelin marka waxaad ka baqaysaa maqlaysaa shay kasta asalkiisa ku noqonaya in ciidanka Soomaaliya meeshooda ay ku soo noqdeen meel ka fogba oo waliba ay awoodeen bad ogtahay waynaad fahantaa naaxiyada hadalkaaga waynaad fahantaa walaalayaal nabad baan u rabnaa dad minis walaalayaal way naga cabsanayna way you have to understand what annaga ku fas waxaan ku arkay adigoo leh habar jalaay garaadada yada waan naceeyay habar jalaay maxaa reer laga bariyaa habarta maxaa laga bariyaa ismada yadi baa miidiyaha wada taagan habar jeclooy nabadda qaata habar jeclooy yaana kaga soo duulin meesha la yaado habar jeclooy isqabsada habar bahalkii ay saa yeela aduu dadwiyada laxbaad ka tahay adduunka warka ma haysidii ilaahay baan isku degaan naga dhigin dhul iyo degaan inaga dhaxaysiisin daris igala kaa dhigin waliba adigoo aan daris la ahayn waxa tahay ninkii Axmed Yare ka baqi jiray Axmed Yare soo nibciida ma hayna habar jeclaa ma hay هاشي ما كيجوجدو نيكا ما جرتن محو ولا جري اما اللباح باي aragtay ama Axmed Yare aragtay buu oran jiray bal ka waran inuu daris ahaan la maxad sameeyay brother horta reer Somaliland ma qajitay asal ma wada lixle wada bootaan ciidanka bootaan inay maxsuusan baa istabal muslim ma haystaan kuma naam bootaan baa kan jooga waxaan aad uga helay wiilkii yar oo dhalay Faisal bootaan oo wajigiisaan muruga ka muuqanin oo aanay wax ka muuqanin waxa hadii suurtagal taxaqani soo dhigaya oo heesa ku ciyaaraya oo aan muujinin aabihii la haystaba geesinimadu waa dhaxal awood waa hiddo xitaa macna wiilkiis baa geesiya oo kula ma baa haystaan ma ogina haystaan baa waramay war halka ka shidaal qaado nabadda baad la yaabtay ma filaya brother waxa kugu yiri horta maalintii wad kala bad naga dhacay aad baan waxyaalaha qaar ba ka carooda waxaan ka carooda aan ku shigaya reer Soomaaliland baan la hadlaya waxaan ka carooda horta ciidanka ninkii Soomaaliland markastoo la soo weeraro intay gowda ka saaraan oo meedkooda waraan bay intay ergadaan magaalada ku shubayeen markii magaalada ku shubana taalada shuhadada in yar u sii jiraan baa la oranaya dib uga soo noqda waa khaladka koobaad ee naga dhacay ko أنا أتكلم يا بناهي مين والد مين سهرانين معلاجي بينهاي وخلادات كان أتكلم يا بي كم ده وأنا وحيابها كنت صير عيدك كن أود ده كلسوني ده يين أنا واحد بيس كجترني أنت اللي أريدو واستدي تمك من بلان باين مال اللقاء وحنا اللي يستدي تمك مي مجالات اللي سعاد كل تبالتقية مين الأوفين مين ينقو كان لهين habeen bay naga dhaxtus kama naanjir toosinta jiirnay baan dhex galay oo waxay tiin tusnay markastoo ciidanka maraaga la soo weerana intay soo jabiyaan bi magaalada la socod galayeen si ka daba galayeen markay siiriyada bal la hatib uga soo noqda waa waxyaabaha gaar ugu taliyay shacab baan ahay dawladeeda lama hadli karo ciidanka waxba ka shaqeyn uma oran karo waxa maxaa sameeyeen laakiin khalad ka martaba ma arki karo meesha la garaan baa dib loogama noqon karo meesha la galo lagama noqon karo no meesha la galo waa in saldhig laga sameystaa dhufays warwad garta Soomaa oo hawada lagu dubtaa taas ayaa ku tusay ciidankeena inaan la jabin inagu aanu is jabinay mid kalena waa nigu daraya waxa kiiga been soo shabeeyay kaariyaal ba hubban qabsanay wallaahi hub nool oo nafi ku jirto walaalayaal lama qabsan war wax kale iska daayay ciidankeena kala lumay ma garanaysa warkii dhaawacaha
ba isagoo laweynayay shalay soo galay wallahi soo galay isagoo mid baa xitaa wuxuu soo galay isagoo maxaabiis wataa oo macal daawacoodii sitaa bay soo galeen iska taa tiknikaa ka yimaad hubay ka yimaadaan hubka gooja haddana iyadoo dagaalku ba dhicin baa markii ba laga saaray waa arrin ciidanka iyaga u taalo ay ka wada hadlayaan aniga hawli taalo maahe oo laga saaray waxyaabihii meesha laga yimin waxay ahaan hub midmid fadhiyo aan dhaqaaqayn oo aan intaa dhacayn xitaa oo iska muunada kiibay qaateen hadduu wax ku taraya kaas igu soo rid hadhow igu soo rid maxaan arkay kabtalaxda le boqol kaaraan haysana halkii maxbuus 20 kale ku daraya oo suubis ku tarsanaya ya ciidanka qaranka Soomaaliland sidii markii hore waxa uu maantanaya wallahi sidii hore weey waliba maanta ku sii awood badan yahay wata ciidankii wax yar oo waxaan ahayn baa ka dhintay maxaabiis yarna waa laga haystaa la sama joogta halka joogan waa kow maxaa ku soo darsamay kaydkii joogay gobolada kale ee leedii ka turayay waa la soo qaado waa la keenay waa laba hubkii kaydka hordin waa la soo dhigay damkii horeyado amal maganayd maxaa soo raaca shacabkii oo ciidanka isqoraya mid walba leeyahay ka qayb galiya ilaahay baa ku dhashay maxaad sugaysaa miskiin baa tahay wallahi xabada u horeysa bilaabanta la joojin maayo ilaa lagu tago masaakiin beetini masaakiin wallahi ka Axmed Madoobe la yiraahdaa qoortiisa saa halkaas soo dhigaya haddana dhiman waa ballan baa qoor ma garat waxaan arkayay odagii garaad Mukhtaar oo leeyahay walaalayaal nabadda macaan nabadda naas la nuuga leh aqligu ha shaqeeyo nabad ku soo dhawaada wixii kala gaari wixii qornaalan waa qornaayeen nabad baa naas la nuuga leh nabad baan ku joognaa oo kaadi alla ma nabadda fta la nuuga leh nabadda canda la nuuga leh ma ayaa odaga nabadda cadle garaad nacasow waxa ku wuri maalintan garow qabsaday gacanta ku dhigay calanka Soomaaliland ka taago isalig military aan ka dhigto nabadiga la hadal inta koreysay galma hadli kartid la tacan tama xuduudda iyo caadimay waxba garow maalinta aan galo been nabadda ka wada hadlayna insha Allah bidillahi karim ana ku bulan qaada ka cabsan wal nabad ma nabadda sano oo ku soo sida nabadda gacanta ka saaray insha Allah nabad bay ku leedahay nabadda raadin samxayta wallahi wala laga dhijinaya mid ka waranayba والله داو عايقة يم حابستي دا أتسلعنيسو مدك روح يقعد نلاقي وولي قد محبوس ومركو يقول ريسي محابس قفتان وولي بس نصيبك تقالكم يغبان ليه يا ويقعد نلاقي الله والله تدنو نول بين القوانين ما تقول اسكو سوريا قرات جامعة وصعاد اسكو سوريا حتى قرات جامعة قرات سمعي وحا ليه محابستنا سيديني مو سيديني ويسكو سوري ويقعد نلاقي ويكدع دع لنا ضيف نسير سمعنا نول نفكو جتا قبطين مسكحدooda ay gelin leeyahay wala uu qadan lay waxa uu leeyahay garaac habeenkii marba ay tooso soo eega arimo bala soo eega inta maxbuus bay hayna wallahi dad nool bay hayna wallahi way noolina ka waran niriso meelana naf ku jirteen qabanay ka waran ayo la farxad way qadan lay حتى فيصل بوتان كي ما هي ولا اسكو سوري او فيصل بوتان بنا لجوج ولا اسكو سوري انت سا تاريخ لقى دي قيمها نيك رير سوماليلاند ولا يسا ku garo ya askar qiimaha u leeyahay ya awood ciidan kan leeyahay ka garo waxa ta iska daa maxabis qof nool war meedka inay sawir la galiyeen maaragtay allah wallahi ni reer Soomaaliland oo dhintay baa xalkiya sawir baa la galiyay waa loo qaadan leeyahay awoodda la ka shidaal qaado ninka reer Soomaaliland waxay aaminsan ninka reer Soomaaliland saddex nafood leh iyaga day aaminsan wasta mid kale ni sheegay walaalayaal inta taasan ka baxay heegankii ciidanka iyo hawsha lagama hadlayo ku taalaay shacabka Soomaaliland horena waa nigu sheegay waxaan doonayaa dad aamin oo dalka jooga inay akoonta ciidanka qaranka Soomaaliland u sameeyaan akoon si wax loogu ururiyo shacabka Soomaaliland loogu soo rido dad aamin oo dalka ku sugan imkaan qurbaan ku noolahay arrimaha mas'uuliyadda reerka iyo ciyaalkayga la baaxatagaya waxa ma qaad karayo dad badan baan wada hadalay qurbaha ku nool waxaan doonayaa inaad koontada akoontka la sameeyo bil kasta calaaf qof kasto reer Soomaaliland qurbaha ku nool dal iyo dibadba $100 cala qof la isku qoraa intaas ciidanka qaranka Soomaaliland waa ka badanta jamhuuriyadda Soomaaliland wallahi dafiya dalal uga badanta macal qoysaskooda gaaraysa akoontka waa la sameeyaa koontada waa la sameeyaa intaas ay nagu taliyaan ciidanka qaranka Soomaaliland waxa leeyahay geesiyaal baati anigu waxaan askari ciidanka tasawir awoodina waan u warhayaa
dadka wax madagaratada ana shalay wax faahsin doona farta waa waxaan ugu dhigi doona hawsha sidii baa barad marka meesha gashaan cidi kama soo noqonaysaan nafa wallahi hadii la yidhaahdo ka soo noqda aniga ba dagaalamaya xanaaqayba kama soo noqonayo meeshii la galo